kanaad kolka hore nooga bilaabanaya xarkahan yaryaren haddii aan meesha kusoo qornay kadibna xadhig intaan dhiganaynaa xadhig kale waxaan dhiganaynaa maalan halkan oo ilaa 6 iyo inay noqdaan baa fiican meelahaasoo kale sidan baad horta u samayn insha allahu marka koobaad waa meesha aad ku kanfi lahayd baad joogtaa saasaan u dhigaynaa si isla eg kow iska dhig kow haddana kan kalena waa 2 kafanka sida sunnada waa 3 dantaa laga yaaba inay keenaysay iyo duruufta laakiin sida alka waatan sida asalka waatan culimada ma la socotaan maxaan samaynay 3dii kafan oo xarka yaryar ay hoosta aan dhignay ayaanu halkaa dhignay markaan kafanta dhigay yay ahayd inaan halkan ku aadan aan kan dhigo waa la fahamsan soo ma kadibna sida markuu yahay dhinaca midig baa laga bilaabayaa inkastoo okay sidan tahay okay haye tii labaadna waa kan isagana waa kan kii saddexaad marka waa kan maartan hadda haddaad fiirisaan maxaa soo haray xarkihii oon diyaarsaday oo halka ii yaalay waa kuwaa marka okay kaas waa kaas kanna waa kaa kanna waa kaa kanna waa kaa kanna waa kaa hadda ma la fahmay kan intaa lagu xidhayaa kanna intaa lagu xidhaya marka maradan soo maartaan maro weyn baan ka soo dhigay wax yar oo naf lahayn baad hore u dhigaysaan kadibna halkan waad dilaacinaysaan waxaa ii soo haray haddii meydkani la waayo hal oo maxaa la yidhahdaa aan kan ahayn oo lagu hal miis baan haystaa soo ma hal miis basaan haystaa dhihi saasaan dhihi maalan waan duuduubaya marka soo duub kan soo duub hal miis soo ma rabtaan sida loogu kanfo inaan idiin faa'iideeyo ayib intaasoo kalaan saas dhahaya waa la fahan soo ma maalan waxaan keenaya hadda meydka tafadal meydka kale maalan tusaale ahaan keenaya saxaada yar macani halkan waxaan ka dhigaynaa meel cidla aya oo aan waxba oolin soo saas ma oo dhulka yaala hor yar soo yar dhulka yaala kadib maxaan samaynaynaa sidan baan dhahaynaa sax mujida isla ekeysiina waan ku qiyaasayaa isuus hadhowta xagga iga badanin soo saas ma kadib kanaan qaadaya sidii caadiga ahayd saasaan dhahayaa kadibna saasaan dhihi haa fiiriya mujida fiiriya si fiican samee waxaas dhan waa diyaar kadib soo celi marka hadda maxaad arkaysaan mujida arta khalaas saasaad marka u samaysan hadihi ariiqa marka mas'alo walba waxay u baahan tahay cilmi iyo aqoon bay u baahan tahay mari waxaa noo soo haray oo keliya marka jinaazadii meydka markii lagu tukanayo jinaaza lagu tukadaa jinaasada rag markii laga hadlayo halkaa madaxa abuu imaamku istaagaa dumar markii laga hadlayana halkaa dhexda abaa la istaagaa saxiix jinaazadu waa 4 takbiirood mar walbana dadka waa la xusuusiyaa marka takbiirta koobaad sidan baa la dhihi هذا وانين مكتب مثلا اساسا به الله اكبر كدبنا محن اخرنا سورة الفاتحة كدبنا الله اكبر صلي النبي ابراهيم اذا كو صليني كدبنا كسدح هذا وامحي الله اكبر كدبنا ميت كان لو دعي وليبا ولغو دheeraada mida ayday gabar tahay iyo haduu nin yahayna waxa loo kala duwaada carabi ku hadlayso allahumma ighfir lahu allahumma ighfir laha allahu akbar oo mid afraad muslimiinta loo ducayn كدبنا السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى علم آد مهم هلا جاء فائدة يسوع ضد كان هلا جالسيو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك